Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan idiin haynaa sheeko cajiib ah oo ka hadlaysa jacaylka hooyada, geesinimada iyo tawakkulka Ilaahay. Sheekadeennu waxay ku saabsan tahay nin dhalinyaro ah oo la odhan jiray Taamir oo u safray meel ka fog dhammaadka dunida si uu u badbaadiyo hooyadiis. Haddii aad jeceshahay sheekooyinka xiisaha leh, fadlan subscribe saar channelka, like saar videoga oo nala soco ilaa dhammaadka. Haddaba aynu bilaabno sheekada. Qaybta hal Taamir iyo hooyadiis. Wakhti hore waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo la odhan jiray Taamir. Wuxuu la noolaa hooyadiis oo xanuunsan gurigooda yar ee ku yaalay bannaanka magaalada. Hooyadiisu waxay ahayd qofka keliya ee uu dunida ku lahaa. Maalin maalmaha ka mid ah xanuunkii hooyadiis ayaa aad u sii xumaaday. Taamir wuxuu u orday inuu keeno dhakhtar. Dhakhtarkii markuu baaray hooyada ayuu si murugo leh u yidhi, xanuunkan waa mid aanan hore u arag mana aqaan daawadiisa. Laakiin wuxuu ku daray, waxaan siin karaa geedo yar oo xanuunka yareeya. Taamir qalbigiisu wuu jabay. Wuxuu ka baqay inuu waayo hooyadiis. Subaxdii xigtay deriskooda Faadumo ayaa timid si ay u soo booqato. Markay maqashay sheekada waxay tidhi, waxaa jira oday aad u yaqaan geedaha daawada. Waxaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo. Taamir isla markiiba wuu fuulay faraskiisa wuxuuna u baxay guriga odayga. Markuu gaaray wuxuu arkay odaygii oo fadhiya geed hoostiisa. Taamir wuxuu uga warramay xanuunka hooyadiis. Odaygii ayaa si deggan u yidhi, xanuunkan waa mid yaab leh. Laakiin waxaa laga yaabaa in daawadiisu ku jirto dhulka jinniga. Taamir aad ayuu ula yaabay. Laakiin odaygii ayaa sii sheegay, waxaa jira amiirad ku nool qasri u dhow dhulkooda. Haddii aad gaarto iyada waxay kaa caawin kartaa. Taamir wuxuu go'aansaday inuu safarka bilaabo. Taamir wuxuu bilaabay safar aad u dheer. Wuxuu ka gudbay lama degaano kul, buuro dhaadheer, iyo dooxooyin fog. Maalmo badan ayuu safar ku jiray. Faraskiisii wuu daalay. Cuntadii iyo biyihii way dhammaadeen. Habeen madow ayuu meel fog ka arkay iftiin. Markuu u soo dhowaaday wuxuu arkay qasri aad u qurux badan. Taamir wuxuu galay qasriga. Wuxuu arkay miis weyn oo cunto badan saaran. Gaajo darteed ayuu wax cunay. Kadib wuxuu arkay haweenay duq ah oo aad u fool xun. Laakiin haweenaydu waxay tidhi, ha baqin. Anigu waxaan ahay amiiradda qasrigan. Waxay u sheegtay, jinni ayaa i sixray markii aan diiday inaan guursado. Waxay ka codsatay Taamir inuu hal habeen la joogo si sixirka looga qaado. Taamir wuu oggolaaday. Subaxdii markii uu soo toosay, amiiraddii waxay noqotay gabadh aad u qurux badan. Sixirkii waa ka baxay. Amiiraddu waxay u sheegtay Taamir waddada uu ku gaari karo jinniga. Taamir wuxuu u baxay safarka. Markuu gaaray wuxuu arkay 3 jinni oo ag fadhiya digsi karaya iyada oo aan dab jirin. Amiirka jinniga ayaa istaagay oo ku yidhi, adiga ma tahay ninkii badbaadiyey amiiradda? Taamir wuu cabsaday. Jinnigu wuxuu go'aansaday inuu habaar ku rido. Wuxuu ku habaaray inuu seexdo 6 bilood. Amiiraddu way murugootay. Waxay ka baryootay jinniga inuu toosiyo Taamir. Jinnigu wuxuu ku shardiyey, haddii aad i guursato waan toosin doonaa. Iyadoo doonaysa inay badbaadiso Taamir ayay oggolaatay. Laakiin jinnigu wuxuu Taamir u diray dal fog oo jinni ah.